xaaladda dalka waynu wada ognahay maanta halka ay marayso innaga golo ahaana mas'uuliyad baa inaga saaran sidii nabadgelyada looga talin lahaa dhammaanteen waxa weeye waddanka xilliyada doorashooyinka kulle khilaafyo badan baa yimaada arrintan buurta gacan libaaxna waxay salka ku haysaa oon arrimaha doorashooyinka waddankana waxaad moodaa inay xukuumaddu gaar ahaan madaxweynuhu ka gaabiyey sidii xal loo heli lahaa had iyo jeerna marka arrimo noocan yimaadaan xagga xukuumadday ka iman jirta hawsha badankeedu ama odayaal ha la diro ama wasiirra ha la diro laakiin xukuumaddu waxaad moodaa inay ka gaabisay problemkanna waxaa abuuray buurta gacan libaax kadib markii uu dhacay inqilaab dastuuriyana oo xagga xukuumadda ka yimiday ama xeer ha ahaado ama wax kale ha ahaado taasay sal ku haysaa haddii aanay xukuumaddu tanaasul samayn oo aanay xisbiyada mucaaridka hadalladooda dhegaysanna sida ay xukuumaddu ku sii socotaa way adkaanaysaa marka anu waxaan leeyahay xukuumadda u soo jeedinayaa inay tanaasulka iyadu samayso oo uu xaggeeda ka yimaado haddii iyadu tanaasul samayn weydana carqaladda buurtan gacan libaax maahe buuro kaloo badan in la galo ayay u dhowaanaysaa wabilaahi tawfiiq waad mahadsantihin